mudanayaal ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa kulan waxa ay ka yeesheen xariga loo geystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sida ay dawladda uga hadashay. mudanayaasha ayaa ugu horeyn kulankooda waxa ay ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin dhaleecayn ay u jeediyeen dawladda in weerarkaasi ay qaaday sidoo kale qaabka loo maray xiritaanka siyaasiga iyagoo sheegay in uu ahaa mid aan laga fiirsanin sida uu warbaahinta ugu akhriyay qodobadii shirkaasi ka soo baxay xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed Macalin. xildhibaanada markii ay isla fiiriyeen isla qiimeeyeen si uu u dhaceen dariiqada loo maray qoraalkii shalay la soo saaray iyo weerarkii la geystay labadaba waxa uu soo baxday qodobadan soo socda. midda koowaad waxay si aan leexleexad lahayn u dhaleecaynayaan u cambaaraynayaan weerarkii loo geystay guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. weerarkaas oo ay 6 qofood gabar iyo 5 wiil ku dhinteen aan waxba galabsanin 3 qof oo Cabdiraxmaan ku jirana lagu dhaawacay isla markaasna Cabdiraxmaan isagoo dhaawaca xabsiga Fataxaabay. Cabdiraxmaan waa xildhibaan hore waa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Soomaaliya hore u soo noqday waa murashax madaxweyne oo 2 jeer isu soo taagay markii ugu dambeysana madaxweynaha Soomaaliya hadda la tartamay. marka weerarka gurigiisa lagu qaaday oo ay nisaq haday sidan loo sheegay booliska xaqiisa aan ka imaanin waxay u arkeen xildhibaanadu inay tahay sharci darro inay tahay khalad siyaasadeed iyo xorriyadda ra'yiga iyo qofka inuu cabiro fikirkiisa saxda ah iyo sida uu aaminsan yahay siyaasadda inuu u jaalanti garan karo aragti ka soo horjeeda oo khaldan ay u muuqatay weerarkaasi. sidaa darteed xildhibaanadu si aad u kala har lahayn ayay u cambaarayeen. sidoo kale waxa uu sheegay in mudanayaasha kulanka ka qaybgalay ka dalbanayaan guddoonka golaha shacabka in si degdeg loo furo kalfadhiga baarlamaanka oo ah mid aan waxaana uu sidoo kale sharciga ka fog tilmaamay amarkii ka soo baxay wasiirka amniga ahaa in aan la qaban karin shir aan dawladda fasax loo siisan. xildhibaanadu waxay isla garteen in baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoonkiisa laga codsado in dib loo furo shirkii golaha shacabka ajendayaasha iyo waxyaabahan muhiimka ah soo kordhana dib looga hadlo. qodobka shanaad waxaa maanta lagu sheegay shirkii jaraa'id oo qabtay wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka iyo mas'uuliyiinta kale la joogay waxaa lagu sheegay in hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho oo ganacsatada oo ay leeyihiin aan shirarka lagu qaban karin taa oo ay u arkeen xildhibaanadu inay tahay xuquuqda muwaadinka oo xadgudub lagu sameynayo. mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee kulanka ka qaybgalay ayaa dhammaan waxay ka soo horjeesteen sida ay dawladda Soomaaliya u wajahday weerarka lagu qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur.